iska celi waa iska celin kartaa lacagtaad halkaa ugu sii wado dawladda way ku sharciyeynaysaa hub qaada iska celi bas san ka geli inta cadaabka sii gelis meesha gelis hub sharciyeyso iska celi waa iska celin kartaa laakiin ihaanadaas inta leeg iyo dullinimadaas inta leeg iyo dadkeena inay saaw ihaanaystaan ganacsadana inay ihaanaystaan dadkeena micnaha inay ihaanaystaan waa waxa keentay inay dadku dhan wada hoggaansamaan waa la sandulaysan halkan waxa la isugu yeeray waxay tahay waran nimanka ma iska celin karnaa mise iska celinayno su'aashu waa taas mise dulligan aan ku sii jirayna dulligan annaga dawladda iyo ganacsatada iyo dadka Soomaaliyeed culimada in dheer garadka dhalinyarada gabdhaha Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed meel ka soo joogaan waxaa la rabaa inay go'aan gaadhaan nimanka iska celiyaan war haddii bulshadii ay qayb lacag siinayso qayb qarinayso qayb logistics oo dhan u qabanayso wiilkeena la soo xidhaa la difaacayo la daba ordaayo maanta la galayo ciidamada amnigu maxay ku sameyn karaan meesha maxay ka qabanayaan dawladdu maxay sameeysaa dawladdu maxay sameynaysaa dawladdu soo dadka ma aha haddii dhinac lacagta laga siinayo oo dhinac laga qarinayo oo dhinac looga shaqeynayo oo dhinac la wado soo meel dab aan damaynin biyo yar ku tuurto maanta soo ma aha dabku ma damaayo dabku ma damaayo in maanta la isu yimid oo halkan la isla joogo waxa weeye war diinteeni haddaynu dad muslimiin nahay saanay qabtaa war dawladeeni haddaynu dawladeena haystaanay leedahay shuruucdeeniina saanay dhigaysaa war haddii aynu shacabkii nahay maxayna la gudboon marka haddii aan ganacsatadii nahay maxayna la gudboon noocan hadda loo sheegay oo ah annagu hadee wixii waa leeyahay siiqatu tamriidka sheekh loomba siiqatu tamriidka wax loo gudbinayo loomba xayawiye raganima loo baahay nimankan waxaan u baahanahay ganacsatadu safka hore inay soo fadhiisato shilin in siin man ilaa banaanka la istaago kadibna dawladda waxa loo diro halkan uu joogaa uu soo hadiday meeshaas uu joogaa telefoonkana ayaa ay dhibay qofkaan ay hadiday meeshaan uu qabanaya dawladana waxa waajib ku ah shaqada inay qabato dadkeeda inay difaacdo